oo dowladaha Masar iyo Ingiriisku ay gumaysanayeen Suudaan. bishii February 1953 boqortooyada Ingiriiska iyo sidoo kale dowladda Masar waxay soo gabagabeeyeen heshiis ku aadan in dadka reer Suudaan la siiyo xorriyadda dowladnimada iyo sidoo kale madax banaani inay helaan. waxaana loo cayimay 2 sanadood oo ah xilli kala guur oo lagu gaarsiin doono maalinta sida rasmiga loogu wareejin doono xornimadooda. waxaana xilligaasi kala guurka ah intii lagu jiray la dhisay guddi loogu magacdaray gaarsiinta gobonimada iyo sidoo kale golo baarlamaan oo noqday baarlamaankii ugu horeeyay ee uu yeeshay wadanka Suudaan xilligii gumaysiga. 18 bishii August 1955 kacdoon hubeysan ayaa ka bilaabmay magaalada Toorit oo ku taala dhanka koonfureed ee Suudaan isla markaasina u dhawaa xuduudda wadanka Uganda. waxaana dhaqdhaqaaqa koonfurta Suudaan ay sheegeen inay ka go'een dhulka wadanka Suudaan ee xornimada ay u diyaarinayaan Ingiriiska iyo Masaaridu. waxaana arintaas ay calaamad u noqotay bilowga dagaal sokeeye kii ugu horeeyay ee Suudaan ka dhaca sanadihii kontomaadkii isla markaasina dhowr iyo 10 sanadood uu soo gabagaboobay 1972 baarlamaankii iyo sidoo kale guddiga xilligaasi loo xil saaray gobonimada wadanka Suudaan waxa ay soo bandhigeen muddooyinkii ka horeeyay ku dhawaaqista rasmiga ee gobonimadooda doodo iyo wada xaajoodyo ku aadan xorriyad qaadashada iyo wax kasta oo ku saabsan madax banaanida ay gaaraan dadka iyo sidoo kale dalka Suudaan. waxaana xilliyadaasi khudbado kala duwan isku weydaarsan jiray golayaashaasi maamulkii xilligaasi ee Suudaan. Suudaan xilligaasi waxa la oran karaa dadkeedu waxa si aad ay ugu oomanaayeen xorriyadda waxaana ka goonayd inay iska rogaan heeriyada labada gumaysi ee maamulkooda gacanta ku haya. hogaamiyihii mudanayaasha mucaaradka ee golaha baarlamaanka Suudaan Maxamed Maxjuub iyo hogaamiyihii aqlabiyada muxaafadka Mr Jaroum ayaa xiliyadaasi aad ugu dooday afkaar ku aadan sida ugu dhow ee shacabka Suudaan ay ku gaari karaan madax banaani taama oo aan dhicisoobin. wax la sugaba waxa soo dhawaatay xilligii loo ballamay in Suudaan ay ku dhawaaqdo xorriyadeeda ay doonaysay 15 bishii December 1955 ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Suudaan Ismaaciil al-Sari oo madax u ahaa guddiga madax banaani gaarsiinta ayaa waxa uu dadkiisa u sheegay in la shaacin doono muddo 4 maalmood gudaheed madax banaanida ay doonayso xukuumadda Suudaan. markii mas'uuliyiinta wadanka Suudaan oo horkacaya Ismaaciil al-Sari ay ku dhawaaqeen madax banaanida dalka Suudaan xilliga uu qaadan doono. xilligaasi jawiga dadweynaha wadanka Suudaan waxay u ahayd xilli farxadeed oo ay doonayeen inay arkaan muuqaalka koobaad ee dawlad madax banaan oo ay leeyihiin. ويصفر التاريخ مولد شعبنا يا إخوتي غنوا لنا اليوم في القصر الجمهوري. waxaana isu soo baxay kumanaan ka mid ah shacabka Suudaan oo dabaaldegyo kala duwan isugu soo baxay magaalooyinka wadankaasi. dabaaldegyadaas oo lagu soo dhaweynayo gobonimada dalkooda uu gaadhay. Ismaaciil al-Sari ayaa la hadlay shacabka Suudaan
waxaana uu sheegay inay heleen madax banaanidii ay ku taamayeen waxaana uu qof kasta oo suudaaniya ugu bashaareeyey inuu ku noolaan doono xorriyad iyo madax banaani isla markaasina ay heli doonaan waddan ay xuquuq ku leeyihiin. waxaa kaloo bilaabmay xaflado horudhaca oo ciidamadii gumaysiga ee masaarida iyo ingiriiska lagala wareegayo goobaha ammaanka ee gacanta ay ku hayaan gaar ahaana qasriyadii looga talin jiray waddanka suudaan. يا جناح الفرحة طير طير واحكي الخبر واروي قصة شعبي كافح كافح وانتصر واروي قصة شعبي كافح كافح وانتصر وخطب النور الطويل من أبو شيكان وكرري ومن علي وعبد الفضيل من أبو شيكان وكرري ومن علي وعبد الفضيل. dhinaca kale waxaa magaalooyinka suudaan ka bilaabmay xilligaasi munaasabado sagootina oo ka dhacay magaalooyinka ay ka mid tahay umudurmaan ee dalka suudaan waxaana fagaaro weyn oo magaaladaasi ku yaala lasoo tubay kumanaan ciidama iyo sidoo kale ciidamadii kale ee gumaysiga ee kala ahaa ingiriis iyo masaarida iyo sidoo kale ciidamada xorriyadda qaadanaya ee suudaan oo sii sagootinaya ciidamada gumaysiga. cutubyo ka tirsan ciidamada miyuusiga garaaca ee ka tirsanaa xoogaga waddanka suudaan iyo boqortooyadii ingiriiska ayaa usoo diyaargaroobay inay garaacaan astaanta miyuusiga ugu dambeysay ee lagu sii sagootinayo ciidamada gumaysiga ee ka bixi doona waddanka suudaan. markii ugu horeysay waxaa soo maray ciidamada ingiriiska waxaana kusii xigay oo soo maray fagaaraha umudurmaan oo xilligaasi kumanaan qof ay taagnaayeen ciidamadii masaarida oo iyaguna ka mid ahaa gumaysiga soo maamulayay waddankaasi suudaan. ugu dambeynna waxaa soo maray xoogaga reer suudaan oo hantiyay gobonimada dalkooda. غنوا لنا اليوم في القصر الجمهوري. wadooyinka magaalada umudurmaan meelo ka mid ah waxaa maalintaasi mashquul ka dhigay gaadaka ciyaarka iyo sidoo kale carbiska ciidamada suudaan oo meelaha qaarkoodna lagu arkayay caruur yaryar oo xidhan dharka ciidamada lagu yaqaano maalinta xorriyadda waddankooda socod ku soo maray wadooyinka magaalada umudurmaan. غنوا لنا اليوم في القصر الجمهوري. sidaasi si lamida magaalada caasimada khartuum waxaa socod ku soo maray cutubyo kale oo ka tirsan gumaystayaashii ingiriiska iyo sidoo kale masaarida iyo sidoo kale ciidamada waddanka suudaan waxaana goobtaasi ku sugnaa ra-iisul wasaarihii xilligaasi ismaaciil al ashari oo madax u ahaa guddiga madax banaanida ee waddanka suudaan. شعبنا يا إخوتي غنوا لنا اليوم في القصر الجمهوري. iyadoo weli lagu jiro xilliga dabaaldega madax banaanida suudaan ayaa waxaa fadhi iskugu yimi baarlamaankii suudaan waxaana ay ku dhawaaqeen islamarkaasina ay soo jeediyeen baaq ku aadan in dowladaha gumaysiga waddanka suudaan oo ahaa ingiriiska iyo masaaridu ay si rasmiya ugu dhawaaqaan gobonimada waddanka suudaan iskii ugu dhawaaqay inay taageersan yihiin iyagoo dhexdoodana isugu tahniyadeeyey gobonimada dalkoodu uu gaadhay.
markii uu soo baxay go-aanka baarlamaanka suudaan ayaa ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee suudaan master al ashari waxa uu u yeedhay wakiiladii gumaysiga masaarida iyo ingiriiska isla markaasina uu gacanta u geliyay waraaqa ay ku cad yihiin suudaan inay xorriyaddeeda qaadatay isla markaasina uu kaga dalbanayo dalalkooda inay dib ugu laabtaan una sheegaan madax banaanida suudaan waxaana uu kulan la qaatay labadii wakiil ee ingiriiska iyo masar muddo kooban kadib labadii gumayste ee suudaan gacanta ku hayay oo kala ahaa masar iyo boqortooyada ingiriiska waxay taageereen madax banaanida ay gaadhay suudaan taariikhdu markay ahayd 1 bishii January 1956 waxaana labada wakiilba ay dib ugu soo noqdeen wadanka suudaan labadaasi wakiil oo kala ahaa Mr Dobar iyo sidoo kale Abdul Fattah al-Hassan waxaana Ismaaciil al-Ashari ay ku wareejiyeen waraaqa si rasmi ah uga tarjumaya inay taageersan yihiin madax banaanida wadanka suudaan kolkii xigeenay dowladda Mareykanka oo kamid ahayd tiro dowlado kale ayaa aqoonsaday madax banaanida suudaan Mr al-Ashari ayaa baarlamaanka suudaan waxa uu u sheegay in dowladihii Masar iyo Ingiriisku ay si rasmi ah ugu soo wareejiyeen isla markaasina ay ku dhawaaqeen aqoonsi rasmi ah oo dowladda suudaan ay siiyeen mar kale ayaa shacabka suudaan waxay u soo baxeen jidadka iyagoo ku faraxsan gaar ahaan xaruntii qasriga jamhuuriga ee looga arriminayay wadanka suudaan waana maalintii hoos loo dhigay oo la dejiyay calaamadii gumaysiga ee Masar iyo Ingiriiska oo dalkaasi ka babanayay ku dhawaad 60 sanadood waxaana la saaray oo kor loo qaaday calanka wadanka suudaan إخوتي غنوا لنا اليوم سيادة في القصر الجمهوري. labadii calan ee gumaystayaasha ee la soo dejiyayna waxaa si rasmi ah loogu wareejiyay labadii wakiil ee Masar iyo Ingiriiska oo goobtaasi ku sugnaa إخوتي غنوا لنا اليوم سيادة في القصر الجمهوري. Mr al-Ashari ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee suudaan oo mar kale shacabkiisa la hadlay waxa uu sheegay in si dhammaystiran ay u haystaan dowlad madax bannaan oo xora taasi oo ahayd mid ay u oomanaayeen shacabka xilligaasi ee suudaan waxaana xigay maalmo kale oo dabaaldega oo dadka reer suudaan ay u yaqaanaan ayaamul khaalidaad يا إخوتي غنوا لنا اليوم سيادة في القصر الجمهوري. si kastaba ha noqotee dowladda carabtu ay hogaaminaysay ee Khartoum waxay samaysay ballanqaadyo ay ugu muhiimsan yihiin in qaab federaali ay gobonimada u wadaagi doonaan iyaga iyo koonfurta suudaan kuwaas oo dabcan wax badan aan ku lahayn dowladnimada gobonimadeeda la helay غنوا لنا اليوم سيادة في القصر الجمهوري. axsaatee xukuumaddii xilligaasi ee Khartoum may fulinin ballanqaadyadii ahaa in walaalahooda koonfurta suudaan ay nidaam federaali ku wadaagi doonaan gobonimada wadankaasi uu qaatay waana halka uu ka bilaabmay dagaalkii koowaad ee sokeeye ee dalkaasi ka dhacay 1955 kaasi oo u dhaxeeyay waqooyiga iyo koonfurta suudaan dagaalkaasi oo socday ku dhawaad 17 sanadood waxaana uu dhamaaday 1972 يا إخوتي غنوا لنا اليوم سيادة في القصر الجمهوري. muddo 10 sanadooda kadib mar kale suudaan waxaa ka qarxay dagaal kale oo sokeeye kaasi oo dhacay 1983 isla markaasina socday ilaa 2005 يا إخوتي غنوا لنا اليوم سيادة في القصر الجمهوري.
dagaalkani sokeeye suudaan ka dhacay waxaa ku leeday kumanaan qof waxaana ku barakacay in ka badan 4 milyan oo ruux kuwaasoo qaxoontinimo ku galay dalalka dariska la dalka suudaan ee ay ka midka yihiin Uganda, Ethiopia, Kenya iyo Masar. waxaana dagaalkani uu u dhaxeeyay ciidamadii militariga iyo sidoo kale fallaagooyin ka jiray gobolada Darfur, Kordofan iyo sidoo kale koonfurta Suudaan. يا إخوتي غنوا لنا اليوم سيادة في القصر الجمهوري. intaas haddaynu ku soo dhaafno taariikhda dhinaca gobonimada ee wadanka Suudaan bal markana aynu si kooban u soo dulmarno qaar ka mid ah hogaamiyaashii soo maray wadanka Suudaan xilliyadii kala duwanaa ee ka dambeeyay xilligii uu qaatay wadankaasi madax banaanidiisa. اليوم سيادة في القصر الجمهوري. madaxweynihii ugu horeeyay wadanka Suudaan uu yeesho tan iyo wixii ka dambeeyay gobonimada wadankaasi waxa uu ahaa Ibrahim Aboud waxaana wadankaasi xilkiisa uu la wareegay 1958 waxaana xilka uu ka degay 1964 waxaana uu ahaa mid ka mid ah saraakiishii militariga waxaana ku sii xigay Sir Al-Khatim Al-Khalifa oo isaguna xilka qabtay 1964 waxaana talada wadankaasi uu hayay muddo hal sano waxaana uu ka soo jeeday saraakiisha xisbigii loo yaqaanay National Umma Party. madaxweynihii saddexaad ee soo maray wadanka Suudaan waxa uu noqday Ismaaciil Al-Ashari oo markii horena gudoomiye ka ahaa guddigii gobonimada soo gaarsiiyay wadanka Suudaan waxaana wadankaasi uu ka talinayay 1965 ilaa 69 waxaana inqilaab meesha kaga saaray General Jaafar al-Numeyri oo talada wadankaasi qabtay 1969 ilaa 1985 oo talada wadankaasi uu hayay waxaana uu ahaa mid ka mid ah saraakiisha militariga wadanka Suudaan. waxaa ku sii xigay hogaamiye lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Aswaar al-Dahab oo wadankaasi taladiisa qabtay 6 bishii Abriil 1985 waxaana talada wadankaasi uu hayay muddo hal sano waxaana uu ka soo jeeday militariga wadankaasi. waxaana ku sii xigay hogaamiye rayda oo ahaa Ahmed al-Migrahi oo talada wadankaasi qabtay 1986 muddo 3 sano ka talinayay wadankaasi waxaana inqilaab meesha kaga saaray hogaamiyaha haatan ka taliya wadanka Suudaan Umar Hassan al-Bashir oo isagoo talada la wareegay 1989 ilaa iyo haatan hogaamiye wadanka Suudaan. غنوا لنا اليوم سيادة في القصر. waa tahay daawadayaal taas aan ku soo dhaafnay qaybta hore ee barnaamijkeena caalamka islaamka oo aynu ku soo qaadanay ama aynu wax badan kaga ogaanay taariikhda dheer ee wadanka Suudaan gaar ahaan xilligii uu xornimada qaatay wadankaasi 1956 iyo sidoo kale taariikhii kala dambeeyay ee wadankaasi uu soo maray oo aynu ku ogaanay waxyaabo badan oo wadankaasi ku saabsan. bal markana aan soo qabto qaybta labaad iyo barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadan doonaa marinka muhiimka ee wadankaasi Masar ee loo yaqaan Canal Suez waxaana la dhisay qarnigii 18aad. haddaba mowduucani waxaanu ku ogaan doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan marinkaasi Canal Suez. marin biyoodka Canal Suez waxa uu isku xidhaa badda Mediterranean-ka iyo badda Cas waxaana dhismihiisa la bilaabay qarnigii 18aad taariikhdu markii ay ku beegnayd 1859 waxaana dhismihiisa la waday muddo 10 sanadooda ugu dambeyntiina waxa uu soo gabagaboobay 1869. Canal Suez waxa maraakiibta adeegsada uu yahay dariiqa ugu dhow ee ay mari karaan marka ay isaga kala gudbayaan qaaradaha Yurub iyo bariga qaaradda Aasiya. ka hor intii aan la hirgelin marinka Canal Suez maraakiibta shixnadaha qaada ee caalamka isaga goosha waxa ay isticmaali jireen marin aad u fog. tusaale ahaan maraakiibta doonaysa inay u safraan wadanka Hindiya waxay ka soo wareegi jireen dhanka koonfureed ee qaaradda Afrika isagoo markaasina gooyn jiray masaafo gaaraysa 7 kilomitir oo u dhiganta 4300 mayl. hase ahaatee tan iyo markii la dhisay marinka Canal Suez waxaa la tilmaamaa inuu noqday marinka ugu dhow ee isku xidha qaaradaha Yurub, Ameerika iyo Aasiyada Bari. marin biyoodka Canal Suez dhererkiisa waxa uu ahaa bilowgii dhismihiisa 102 mayl oo u dhigma 164 kilomitir. waxaa kaloo la sheegay inuu hoos u qodnaa 26 feet oo u dhiganta 8 mitir. hase ahaatee waqtiyo badan ayaa dhismihiisa wax lagu kordhiyay. waqti xaadirkanina waxaa la qiyaasaa dhererka rasmiga ah ee Canal Suez inuu yahay 193 kilomitir oo u dhigma 120 mayl. sidoo kale 24 mitir ayaa uu hoos u qodan yahay
waxaana ballaciisa lagu qiyaasaa 205 mitir. kanaal Suez magaalooyin dhowra ayaa u maraa, waxaana ka mid ah magaalada Port Said oo ku taalla cirifka waqooyi ee kanaalku kaga xidhma badweynta Mediterranean-ka, iyo sidoo kale magaalooyinka Suez iyo Ismaaciiliya oo ku yaala hareeraha galbeed ee marinbiyoodka, iyo sidoo kale magaalada Port Tawfiiq oo ku taalla cirifka koonfureed ee marinka Suez uu kaga xidhmo badda Cas. inta u dhaxaysa labada badood marinbiyoodka kanaal Suez waxa uu sii jeeraa qaar ka mid ah harooyin dabiici oo halkaasi ku yaalay, oo ay ka mid tahay harada lagu magacaabo Great Lake Bita ama harada afka Carabiga loogu yeedho Al-Buhayrat al-Murrat al-Kubra, oo macnaheedu yahay harada weyn ee biyaheedu ay milixda yihiin. xilligii aan la dhisin kanaal Suez, haradani waxay ahayd mid dabiici oo fadhida biyaheeduna ay milix yihiin, waxaana kaga dhawaa dhinaca waqooyi harooyin kale. asaatee markii dhismihiisa la bilaabay kanaal Suez, harooyinkani waxay noqdeen kuwa u shaqeeya si dabiici ah, waxaana xilliga jiilaalka ay u qulqulaan dhanka waqooyi halka xilliga xagaagana ay u qulqulaan dhanka koonfureed. si kastaba ha noqotee, marinka Suez ma laha meelo maraakiibta lagu joojiyo oo biyaha dhexdooda marka laga reebo siyaabo kale oo maraakiibta loo hakiyo ka hor inta aanay soo gelin marinbiyoodka. kanaal Suez waxaa iskale dowladda Masaarida, waxaana maamula guddi ka kooban 14 xubnood oo ay soo magacawdo xukuumadda Masar, waxaana marinkaasi ay ku maamulaan qawaaniin caalami ah oo adduunyadu ay la gashay wadanka Masar, kuwaas oo qodobadiisa ay ugu muhiimsan yihiin in xilli nabadeed iyo mid colaadeedba markab kasta oo halkaasi soo maraa uu ka gudbo shuruud la-aan marinka Suez iyadoo aan loo eegaynin calanka uu sito. taasi macnaheeduna waxay tahay in dowladda Masaaridu ay ku khasban tahay in marinka Suez aanay u isticmaali karin awood ay kula loolanto caalamka qaybihiisa kale, amaba ay isku hortaagi karto maraakiibta ay leeyihiin qaar ka mid ah wadamada siyaasad ahaan ay hayaan. taasina waxay meesha ka saaraysaa hadiiba ay jiraan wadamo colaad ay ka dhaxayso wadanka Masar iyo kuwa ay heshiiska yihiinba maraakiibtooda ay si xor uga gudbi karaan marinbiyoodka kanaal Suez si loo ilaaliyo isu socodka maraakiibta adduunyada u kala gooshta. guddiga maamula kanaalka Suez waxaa markii ugu horeysay asaaskiisa lagu dhawaaqay 1956 xilligaas oo ay jireen dhibaatooyin loogu magacdaray qalalaasihii kanaalka, oo xilligaasi madaxweynihii ka talin jiray wadanka Masar Jamal Abdel Nasser oo sharikadaha shisheeyaha xilligaasi gacanta ku hayay uu ka soo wareejiyay marinka Suez, isla markaasina uu ku daray hantida rasmiga ah ee uu leeyahay qaranka Masaaridu. waxaana xilligaasi uu ku dhawaaqay guddiga maamula marinka Suez, waana guddi madax bannaan oo ka kooban 14 xubnood oo xafiiskooda guudna uu ku yaala magaalada Ismaaciiliya. qiyaasta maraakiibta ka gudubta sanad walba marinkani waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 15,000 oo maraakiib caalami ah. tusaale ahaan sanadkii 2012 waxaa la sheegay in kanaal Suez ka gudbeen ku dhawaad 17,000 oo markab. bishii la soo dhaafay ee August 6 sanadkii 2014 madaxweynaha Masaarida Abdel Fattah al-Sisi waxa uu shaaca ka qaaday in dowladdiisu ay qodayso marin cusub oo la mid ah kan haatan ka jira ee kanaal Suez. kanaalka cusub waxaa laga qodi doonaa meelaan sidaas uga fogeyn kanaalka hore ee Suez. militariga Masaarida ayaa fulinaya mashruuca dhismaha marinka cusub, waxaana lagu tilmaamay tallaabadii ugu weyneyd ee uu qaaday madaxweyne Sisi wixii ka dambeeyay markii uu qabtay talada wadanka Masar, waxaana la sheegaa in dadaal ballaaran ugu jiro farsamo kasta oo lagu soo kobcin karo dhaqaalaha wadanka Masar oo leecay sanadihii la soo dhaafo oo rabshado ay hadheeyeen dalkaasi Masar, kadibna ay meesha ka saareen dalxiisayaashii ajaanibka ah ee dalkaasi booqan jiray iyo maalgashiga dhinaca dibadda. mashruuca dhismaha cusubna waxaa ku bixi doona lacag lagu qiyaasay 8.9 bilyan oo dollarka Mareykanka, waxaana uu dhismihiisu socon doonaa muddo 3 sannadood ah. عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع. حفظ الله مصر وحفظ الله شعب مصر العظيم إن شاء الله. madaxweynaha Masaarida Abdel Fattah al-Sisi oo ku sugnaa marinka kanaal Suez ayaa militarigiisa faray muddadaasi ay ku dhamaystiraan dhismaha kanaalka cusub. Abdel Fattah al-Sisi ayaa isagu isbarbar dhigay madaxweynihii hore ee wadanka Masar Jamal Abdel Nasser oo isagu Masaarida dib gacantooda ugu soo celiyay marinkani.
17 bishani Sebtembar ee sanadka 2014 waxaa wadanka Masar uu shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen kharashkii ku bixi lahaa dhismaha marin biyoodka labaad ee Canal Suez